to try and make it 3-3. Moment for Pat. It's a decent delivery. Touched by Strauch. Oh! Salah. Are we watching a computer? بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي على وين أكشن كسر دواد رويال تالنت سبورتس قلبت عيار وين وحكمت أرسنال أو جول وين كبلابة بريمير ليج حل الدافع عصب جابرييل أوفرت أكون كيس جولشة أنا صاحبي أنا كبلاوني كهذا أرسنال يا جول كبلابة عيارات كعصب بريمير ليج كدمركي أي جرعد كهذا كسر لابة بريمير ليج فولهام كلن كأيا حميد فولهام سيدر درله وكبلابة توانك دقيقة وجول رئيس علي بعضن جلس دافع إذا أرسنال laakiin waxa intaasi ka dambeeyay Arsenal ayaa la wareegtay hogaanka ciyaarta iyadoo baas ku maamulaysa ciyaarta oo dhan Arsenal ayaa daqiiqadii 8 dhalisay goolkeeda koowaad waxaana u dhaliyay weeraryahankeeda Lacazette kadib goolka Arsenal ayaa ahayd koox fiican iyagoo raadinaysa inay si dheeraysato hogaanka goolasha dhibaatada ugu weyn ee Fulham haysata ayaa qaybtii hore ciyaarta ay ahayd inay ka maqnaayeen dhameystirka goolasha marka loo eego inay dhowr fursadood oo cajiib ah ay heleen laakiin waxa sidaasi ay ku soo dhamaatay qaybtii hore ciyaarta iyadoo Arsenal hal iyo eber ku hogaaminaysay qaybtii hore qaybtii dambe ciyaarta ay Arsenal si dardar leh ugu bilaabatay iyagoo doonaya inay ciyaarta waqti horeba dilaan daqiiqadii 49aad waxa goolka labaad Gunners u dhaliyay ciyaartooyga daafaca ee Gabriel kaas oo konkiisa goolasha furtay daafaca Gabriel ayaa sidoo kale muujiyay tayadiisa dhanka daafacashada isagoo weeraryahanada Fulham isa hor istaagayay ka diidayna inay gool ka dhaliyaan Arsenal ayaa sii waday dadaalka ay raadinayso goolasha ay ku goob gelisay kooxda ay martida u ahayd ee Fulham kuwaasi oo dhibaato weyn ay kala kulantay kulankii daqiiqadii 57 Arsenal ayaa dhalisay goolkeedii saddexaad iyadoo uu dhaliyay kabtankooda Pierre-Emerick Aubameyang kaas oo ciyaarta dilay goolka Pierre-Emerick Aubameyang ayaa gabi ahaan beddelay rajada kasta ay Fulham ku lahayd iyo inay kulanka ku soo laabataba kooxda Arsenal ayaa fursad fiican heshay daqiiqadii ugu dambeeyay kuwaasi ay ka dhalin kareen ugu yaraan 2 gool oo kale laakiin Gunners ma aysan u suurtagelin waxa sidaas ay ku dhamaatay ciyaartii Arsenal gool muhiim ay ka gaartay bilaabashada kulanka Premier wada saabiyaal qodob kale caawa aad ku maqli doontaan inta barnaamijkan aan ugu jirno waxa kamid ah Liverpool oo gool dirqi ah ka gaartay kooxda Leeds United garoonkeeda Anfield Liverpool ayaa gool dirqi ah ka gaartay kooxda Leeds United garoonka Anfield kulankii ugu horeeyay ee horyaalka Premier League kala ciyaareedka 2020 kadib markii kaga adkaatay Everton 3 qaybtii hore ciyaarta ayaa lagu kala maray 3-2 ay ku hogaaminaysa kooxda martida loo yahay Liverpool daqiiqadii afraad ciyaarta Liverpool ayaa heshay rigoore waxaana gool u bedelay xidigeeda Mohamed Salah waxa ay sidaas ku noqotay hal iyo eber ay ku hogaaminaysa kooxda Reds daqiiqadii 12aad markii Deesha ahayd Leeds United ayaa soo laabasho waxaan sameysay waxaana gool hal iyo hal ka dhigay ciyaarta Jack Hansen kadib markii uu caawin ka helay saaxiibkiisa Calvin Phillips daqiiqadii 20aad Liverpool ayaa mar kale hogaanka qabatay ciyaarta kadib markii 2-1 ay ka dhigtay Virgil van Dijk ayaa gool ka dhaliyay waxaana caawinta lahaa Andre Robertson Leeds United ayaa mar kale goolka barbaraha la timaaday daqiiqadii 30aad kadib markii 2-2 ay ka dhigtay waxaana gool ka dhaliyay Brighton Performance daqiiqadii 33aad Mohamed Salah ayaa mar kale hogaanka u dhiibay kooxdiisa Liverpool waxaana ciyaarta ka dhigay 3-2 qaybtii labaad ee Deesha markii dib la isku soo laabtay ayaa waxa ay soo bandhigeen labada dhinac qaab ciyaareed aad wanaagsan laakiin 66 daqiiqo markii ay ciyaartu ahayd Leeds United ayaa mucjiso ku noqotay Liverpool kulanka ay martidu ay u ahayd waxaana goolkeedii saddexaad ee barbaraha ay dhalisay waxaana goolka u dhaliyay Moise Kean waxaana caawiyay xidiga ama saaxiibkiisa Helder Costa daqiiqadii 88 ama dhamaadkii Deesha Liverpool ayaa heshay rigoore waxaana gool u bedelay xidigeeda Mohamed Salah ciyaartana sidaas ay ku noqotay average 3 ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay average 3 ay Liverpool kuwa awood sheegatay ama kaga badisay Leeds United oo marti ay u ahayd garoonka Anfield Reds ayaa gacanta ku dhigtay 3 dhibcood ee ugu horeysay horyaalka Premier League 2021 wata shacab intaan muuqaalkan aan kulmi doono hadii ka tagay siyaasi nabadgelyo
janaalka subscribe saar dambalaalkana fura saacad ugu noqoto daawadaheena ood ku maasantahay la socodkaada saaxiib